يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إدل هانتين برمضان كريم، رمضان مبارك. داوديال كوسل هذا برنامج كين ودا علماء وحعاوة مرتين جوا فضيلة الشيخ فيصل علي فارح وكمل علماء مقالة قبل كتقدر ugu horeyn daawadayaal sheekh ay guloo soo barnaamijka sheekhana ku soo barnaamijka culimada daawadayaal sheekh Faisal wuxuu kamid yahay culimadii in muddo ahayd ba tafsiirka ama macnaha tafsiirka Quraanka Kariimka ku soo ka dhaxwaday magaalada iyo hareeraheedaba waqti badanna runtii geliyay waxaanu caawa sheekha si gaar ah uga wareysan doonaa bal tafsiirka iyo siyaabaha loo baran karo oo mashruuci Quraanka la xiriira ugu horeyn sheekhana bal xog yar oo kooban taariikh nololeedkaagii halkaad ku dhalatay iyo cilmiga bartaad ka qaadatay sheekhana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. walaalkay shahaabadiin aan oran karana ardaydaydii iyo nimanka dhalinyarada la khayr siiyo su'aasha adag ee uu weydiiyay ee taariikh nololeedka oo waxyaabahan iska jecelahay inay iska noqdaan wax qarsoodiya laakiin haddii su'aashii la hordhigaan laga maarmi waayay markaan soo koobo magacaygu waa Faysal Ali Faarax Bulaale waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa sanadka markuu ahaa 1962 bishii intay ka ahayd garan maayo ayaan Hargeysa ku dhashay laga bilaabo xilliga ilaa intaan secondary ka baxayay waxaan ku sugnaa magaalada la yiraahdo Hargeysa marka halkaas aan ku soo bilaabay nolosha bilowgeedii waxbarashadii dugsiga hoose malcaamadda dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare inta waxaan noo weheliyay waxbarashadii masaajidada waayo maanta sidaan ognahay jaamacado badan iyo wax badan baa samaysmay waxbarasho badan baa samaysantay waqtiga ma jirin waxbarashada dugsiga sare ugu sareeyay gobolada Muqdisho loo qaban jiray jaamacadda ummadda xilliga jirtay marka meelaha xagga diinta waxa laga baran jiray waxay ahaayeen xalaqaadka masaajidada oo iyaga laftigooda marka yaani ogolaasho iska yara marka aan lagu fasaxay iska yaraayeen laakiin culimadu ma sha Allah khayr Allah si hadana way dadaalayeen xalaqaadka masaajidka anigu markaan ka socodkaygu ma badnayn magaalada ayaan waxbarashadaydu mid maadiya iyo mid diiniyaba ay ahayd masaajidadaas aan u badnaa magaalada ku yaala haduu yahay masjid jaamica haduu yahay masjid nuur haduu yahay masjidkii la oran jiray masjid abo haduu yahay masaajidkii kale ee isaguna Cabdiraxmaan Kaari Sheekh Cabdiraxmaan Kaari Allah u naxariiste iyo masaajid badan oo inta ku dhadhow ayaanu markaa culimada ku taxnayn biidnillaahi halkaas waxbarashada masaajidkana alxamdulillah waxyaabaan Ilaahay ugu mahadnaqay waxa kamida anoo waxbarashadii iskuulkana ku jira in Ilaahay ii sahlay oo ii ogolaado ii fiday oo bifadlihi inaan hadana masaajidkii ku xirmo oo waxbarashadii masaajidkana aan ku xirmo xalaqaadkina aan ku xirmo waa mahad Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka inta way taariikh nololeedkayga kooban laga bilaabo laakiin 1984 bilowgiisii ayaan Barcaw soo wareegay halkaas aan hadana reer Barcaw ka noqday 88 waa la qaxay hadana dib baan ugu soo noqonay
sagaashan iyo 3 baan haddana Sacuudi Arabiya qabtay jaamacadda ayaan ka galay jaamacaddaana sabab waxa ahaa khayr Allah siiyo jazakallahu khayr ila miisaanka xasanaad ha siiyo maxamed cabdi daawud nin la yiraahdo oo Hargeysa joogo oo iska macruuf aniga iyo rag badan oo kale ayaanu sabab noogu ahaa jaamacatul imaam baan noo soo baxday sanadii bar markaan ku jiray adigu jaamacatul imaam haddana adigu waxba isbedbedelay jaamacatul islaamiya muqaabala haddana nalooga qaaday alxamdulillah aniga iyo wadaadka calimataan tujiye maxamed la yiraahdo aadan sheekh maxamed aadan baan nasiib u helay inaan markaa haddana jaamacada islaamiya gallo jaamacada islaamiya markaa haddana waxbarashadii kuliyatul quraan baan galay ودراسات الإسلامية سداسان هذا علومتي قرآن كسي وذي إلا عن كجسوت تخرجي والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ما شاء الله شيخنا إنك سوكوبن مهمة ولي هاي برشة تفسير القرآن الكريم كه الشيخ يركوبن. وأيضا وسؤال هذا مهمة أرتسين أقنا هاي إلهي نعم كيس عيد ما كروب كرته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي نعم كيس آد بأتربذي. nicmooyinka waaweyn ee ilaahayna siiyey waxaa ka mid ah in ilaahay kitaabka quraanka inoo soo dejiyey oo ilaahay naga yeelay ummadu Muhammad sallallahu alayhi wasallam inaan nasiib u helay kitaabka oo aakhir al-kutub inaan nasiib u helay kitaabka ilaahay xifdiyey inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun marka cilmiga la yiraahdo cilmu tafsiir waa cilmi la xiriira kitaabka adduunyada ugu qaalisana marka nicmooyinka waaweyn ee ilaahay bixiyo waxaa ka mid ah inaad kitaabkii ilaahay lafdigiisina akhrido macnihiisina aad fahantaa waa nicmooyinka waaweyn waxaan oran karnaa sidii tafsiirka cilmigiisu dee wuxuu soo bilaabmay laga bilaabo markuu quraanku soo degay ilaa yoomina haadana uu socdaayo macaanidiisu ma dhamaato culimadu waxay yiraahdaan alfaadiisu way kooban tahay laakiin macnihiisu waa bad laa saaxila lahu waxa kitaab la qoray baad ka garaysaa ilaa yoomaantana la qoraayo ee la qorayo marka socdo oo mar qodaba istaagay nin iyo fikirkiisa iyo nin iyo fahankiisa marka waxaan oran karnaa cilmiga tafsiirku waa nicmooyinka waaweyn ee ilaahay bixiyo ninkii ilaahay u furo ee axkaamtii iyo xikamkii quraanka kala soo baxaana waa wax aad u qaaliya iyadoo kooban ma sha Allah taro sheekh markaad qiyaasto markii ugu horeysay Soomaalidu soo gaaray ama uu deegaanadan Soomaaliland soo gaaray sidee uu ku soo gaaray sheekh wallahi su'aasha waxa iga aqoon roon in dadka iga waaweyn la weydiiyo in kastaan weynka dadka waaweyn ku jiro dani yar aan ahayn haddana su'aashaasi xilmu tafsiirku soo gaaray wallahi ma hayo jawaabteeda wuxuu bay aniga ila tahay waa ra'yiga dee xilliga quraanku soo gaaray inuu tafsiirkii quraanku kala xari maayaan inay wada socdeen ma sha Allah sheekhi kooda sheekhadu aad ka dhigatay iyo halkaad ka dhigatay qaabka waliba aad u dhigatay marka taa ku soo noqdo anigu horta waxaan la kulmay xilligii saxwadu ay kacday marka saxwadu waxay masaajidada ku dhigi jirtay casharada waxa lafdhabar u ahaa duruusta waxa lafdhabar u ahaa tafsiirka marka tafsiirka laga baxana waxa laga dambaysiin jiray duruus kale oo in maarta qofba wuxuu u baahan yahay qofkii alif u baahan alifka in loo dhigo qofkii maxay ahayd u baahan fiqi in safiina salaadka looga bilaabo sida in dadka loo kala jijiyeeyo loo kala qaybiyo marka xilligaas aan anigu ku soo beegmay waana dhowr iyo 70kii maaha xilli yar waa dhowr iyo 70kii laga soo bilaabo 76kii meelaha 77kii ilaa 78kii waanu soo wadnay marka masaajidka ugu badan ee marka aanu ku taxnay wuxuu ahaa aan marka dhalinyarada baraacin baa la oran jiray barigaas ereyga baraacin baa laga isticmaali jiray Hargeysa dhalinyarada yar ee soo kacaysa marka أنا waxaan oran karaa imka xalqadii koowaad waqtiga waxaan noo dhigayay ninkii la oran jiray Axmed Deeriye Liibaan nin reer Hargeysa weeye waxba imka inta faahfaahin badan sii geli maayo xalqadii ugu horeysay ku taxma baraacim ahaan aan ugu taxmaa waxa uu ahaa ninkii la oran jiray Axmed Deeriye Liibaan Allah khayr hasiyo imkana kulli waxaan filayaa oo dadka dibadda ku maqan baa la ii sheegay inuu yahay mar uu yimi waa isaragnay sidaas marka horta aan tafsiirka saxwada ayaa halka ka soo bilaabay waa ka isagoo kooban waa sheekh waxa jira maalin ka soo harkaysa maraakiis laga qalin jibinayo xagga xifdiga quraanka kariimka dad badan marka waxay jecel yihiin dhalinyaro ah sidii ay ku baran lahaayeen tafsiirka iyo macnihiisa marka sheekh qaabka ugu fudud ay ku baran karaan ka dhalinyaro ahaan horta tafsiirku de culumul quraanku kamid yahay
waana cilmi tafsiir wax gooni u taagan oo ilaa xilligii waqtigu soo degay ilaa maantana socda laba qaybood baana sida guud loo kala qaybiyaa waa cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya cilmu diraaya cilmu riwaaya waa wixii xadathana ku yimaada ee rasuulka laga soo guuriyo ee saxaabada laga soo guuriyo taasaa laf dhabar u ah qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam in la yiraahdo qayb kalena waa lagu daraa riwaayada oo quraanka fasirayana waa lagu daraa oo marka qismu riwaaya la yiraahdaa waa tafsiir riwaaya la yiraahdaa qaybta labaad waa qismu diraaya oo waa ra'yiga ah marka isagana laba qaybood baa loo kala saaraa ra'yi fiican iyo ra'yi aan wanaagsanayn oo dadka qaarkood in ra'yi aan fiicnayn iyo ta'wiil aan fiicnayn marka laba macnana way soo guda galaan oo erayga tafsiir iyo ta'wiil marka waxay qaarkoodna waa isku mid bay yiraahdaan qaarna way kala qaadaan oo tafsiir iyo ta'wiil waa kala jaad bay yiraahdaan oo tafsiirkuna wuxuu ku saabsan yahay qaybta riwaayada ta'wiilkuna wuxuu ku saabsan yahay qaybta diraayada qolada isu kala ugu baalaysaana way jirtaa calaayat xal hadii diraayada riwaaya laga dhigo qaybta riwaayada ta'wiil laga dhigo ta'wiilkii waa laba qeybno mid sax ah iyo mid aan sax ahayn marka ka aan sax ahayn marka dariiqada ugu sahlan waxa weeyaan usul buu leeyahay tafsiirku in ususha la raaco oo usushaasi ay tahay in marka hore wixii ka kaalmaynaya aad barato oo ay kow ka tahay luqada carabiga waa ilaahay quraankii wuxuu u dooray isagoo khalqiga oo dhan loo soo wada dajiyay buu ilaahay wuxuu u dooray luqada carabiga marka inaan luqada carabiga xoog saaro oo aynu ka dhigano luqadeeni laf dhabarta ahayd oo barano oo naxwaheedii iyo sarfigeedii iyo balaaqadeedii iyo macaanideedii aynu baraniyo adabkeedii wax ka qaadano waan ku qasbanahay si aynu u fahanno ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa ta'ala iyo tafsiirkiisa si aynu u fahanno marka talada aan soo jeedinaya waxay tahay dhalinyarada nimanka macaahid iyo jaamacaadka iyo waxaasiba ku wada jirta sidee taladii quraanka ay u gaaraan luqada carabiga xoog ka saaraan luqada carabiga yaan la fudaysanin luqada carabiga yaan la fudaysan sida maanta waaqaca ka muuqata waa la fudaysaday ingiriisi iyo xaggeeda loo jeedaa iyo waxyaabo kale loo jeedaa tawarta in la saaro midda labaad ee xoogga la saarayo iyaduna waxa weeyaan qawaacidii tafsiirka la raaco oo ay ka mid tahay wixii riwaayadana in riwaayadeeda la raaco oo wixii saxiixa la qaato wixii diraaye ahna diraayadiisa la raaco oo ra'yiyada xunxunna la iska ilaaliyo markaasaa tafsiirkii sax ahaa iyo fahamkii sax ahaa aad qaadanaysaa waxyaabaha qaldan waxaa ka mid ah inaad ra'yiga intaad qaadato ra'yi qaldan qaadato oo riwaayadii ka horreysiiso waxyaabaha khaladaadka keenaya ayay ka mid tahay iyadoo koobanna intaasaan kusoo koobaya way kutubta sheekh ugu muhiimsan ama ugu fiican ee qofka bilowga ah oo akhrisan karo oo ka dalacan karo waqtigii aan jaamacadda tagay ayaa waxaan xasuustaa nimankii culimada tafsiirka dhigi jireen marka ardayga u noqday waxaa ka mid ahaa sheekha la yiraahdo sheekh xikmat bashiir oo ciraaqi ahaa laakiin jinsiyad sacuudiyada haysto jaamacadda wax ka dhigi jiray qismiga tafsiirka dhigi jiray aadna baliiq ugu ahaa iyo sheekhan kale isaguna la yiraahdo Dr. Khalid Sabti oo isaguna tafsiirka dhigi jiray oo tafsiirkana aad baliiq ugu ahaa iyo sheekh Cadiim Maxamed Saalim oo isaguna tatimada adwaa bayaan kale iyo ragga culimada ah runtii xaqiiqatan hadaladii iyo adwaa bayaanka sheekh qoray inankiisiyo oo isaguna Allah yarxamu geeriyoodo sheekh Cabdallah oo isaguna tafsiirka baliiq ku ahaa oo isaguna noo dhigi jiray culimada hadaladii aan ka maqlay oo iyaguna aan ku qanacsanay waxaa ka mid ah talibul cilmiga marka uu tafsiirka doonayo inuu bilaabo kutubta aadka ugu muhiimka ah waxaa ka mid ah Fathul Qadiirka Fathul Qadiirkuna wuxuu ka mid yahay kutubta jamcisa bayna riwaaya wa diraaya riwaayada iyo diraayada walibana kala saarta intuu horeysiyo diyaarayada riwaayada dambaysiya marka talibul cilmiga aad bay u kaalinaysaa inkasta oo maartay la yiraahdo waxoogaa abuudee waa zaydiyadii iyo fariiqada waxa ku sugan wixii adigu sheekha la sheegay qofku iska galaya waa ka hadii kale miyaa kutubta kale iyaduna aad u badan yihiin kutubtu laakiin waxay leedahay culimadu waxay riwaayada ابن جرير الطبري با كميدا ابن كثير با كميدا oo kuwa tafsiir al-ma'thur ka lagu soo hadal qaata kamida inkastoo iyaguna ra'yiga aanay ka madhnayn aanay ra'yiga ka madhnayn marka maadaama ay leeyahay dalibul cilmiga maanta maxaa u fiican kutubta u fiican Fathul Qadiirka kamida kutubta luqaduna way u fiican tahay kutubta ma'thurkuna way u fiican tahay marka kutubta luqadana inta badan culimadeena aanu ka soo gaadhnay jalaaleenka iyo sharaxdiisana isaguna aad buu ugu wanaagsan yahay aad iyo aad buu ugu fiican yahay inay kuwa xoog ka saaraan sheekhana waxaanu joognaa guntii iyo gabadhii barnaamijka
macnaha hal aayadoo aad ku saameysay ama talada ugu dambaysa aad kaga baxayso barnaamijka wallahi quraanka dhamaantii waa wada cajaa'ib laakiin maadaama aataa itaabatay waxaan ku soo gabagabaynayaa qul in dalaltu fa inamaa adillu calaa nafsi wa in ihtadaytu fabima yuuxii ilaya rabbi inahu samiicun qariib suurati saba khayru khalqi illaah oo ilaahay waxyiga ku soo dejiyay baa waxaa la yidhaha rasuul allah waxaad ku tidhaahdaa dadka waxaa kaa soo horjeedaba qul in dalaltu war haddaan baadiyoobo oo lumo ilan adigan baadi igu xukumaye sida maanta dadka wax allaale waxa toosan baadi loogu xukumayo qul in dalaltu fa inamaa adillu calaa nafsi anun baa da islumiyey wa in ihtadaytu haddaan hanuunana sabab maxaa u ah fabimaa yuuxii ilaya rabbi waa wixii ilaahay ii waxyooday war haddii khayru khalqi illaahi hidaayadii ilaahay siiyey uu leeyahay waxaa sabab u ah waxyigii iyo qur-aankii ayna naxnu inaguna xaggaynu istaagayna بارك الله فيكم دردارنك آيات كاسي تلماميان والقرآن كو وكتابك هنونك طريقي هنونك وسعادة طريقي ذي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رسولك أين كد ينو آيات دا سعاد بإي تابنيسا فبما يوحي إلي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي هدان لمو أنا قبض ضلالك هدان هنونه فبما يوحي إلي ربي ووحي إلهي وحيه والكتاب هداية وإن أجي لا إلهينا هين أفرو آيات داسان كسوق بقبيني والسلام عليكم ورحمة الله داود يا لنتاس وحن كسف ميرنا حلقة نعاوة تاسو مرتنوها الشيخ فيصل علي فارح وحن كتجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله